ninka adiga gabadhu iyo ka tagtay way ka dhumatay wala marka ama weydiiday hadii aad iskaga tagtay waxa soo caliyay weyday marka ilaa waa naashisi ogo lacanad baa ku socota intay baa xaq ku maqnay wax kale soo jid mariyana way weyday balaayo waa weyn hadayna jirin markaas inay soo safri karto ayadoo kaligeeda ilaa dambi bay ku sugantaa ma hadda waxa ku sugantaa nabiga kaleey salaatu salaam salaadeeda lama aqbalahay ilaa ruux salaadeeda lama aqbalahay soo maartay meesh dibka u haystay hadii kolka balaayo weyn jirin kaligeeda ayuu inay soo safri karto way u soo laaban kartaa bada zawjkeedii ay kaasay culimadu baa marka ku daraan hadii inta midna ayna ahayn oo safarkii baa marka xajkii iyo waxay lamida u noqda xajkiina u safarta gabadhi jumhuurul ulama waxay leeyihiin maya intooda badan haduna mahram la soconin xajki kuma waajibahaye waaye marka bas way iska joogaysaa imaam shaafici laakiin asagu wuxuu leeyahay yaanihi mahram shardi ma aha amni ba shardi maxaa yeelay hadii haween lagu kalsoon yahay oo fiqaada iyadii ay way wada socdaan mahram kalena una jirin haweenka iyagaana haween bay markaas la faraxumayn ayna sida qaalibka u suuragal ah marka aynan ahayn sida qaalibka ilaa haweenka haday 3 iyo 4 iyo marka gaaraan fiqaadna ay yihiin sida qaalibka marka waxay u badan yihiin baad markaas inaan la faraxumaynin bay u badan yihiin sida darteed marka way amnina uu yahay wadadu way iska bixi kartaa laakiin kulli waxa la isku raacsan yahay hadana oo aymatul madahib al-arba'a hadii gabadhi ayadoon mahram wadanin ay safarto oo ayadoo xataa xaraam weeyeen ay safarto xajido xajkeedii waan saxaya ilaa macsiyadu safarkay ku socotay xajkuna bada waa gaar marka waan saxaysaa laakiin ragga qaarkood waxay yiraahdeen ilaa xajkaasi mukhalafa iyo yaani sharciga khilaafkii buu ku yar dhax sugnaaye xaj mabruura inuu san noqonin bay u dhowdahay bal xaj mabruura inuu san noqon laakiin xajku asagu gudi baa xajul islaamku uu kiridahay gabadh waxay ku soo qaateen qaarkood bal culimada qaar ku shabaheen ninkii tuugsi ku xajiyo oo kale mid Soomaaliya waa iga dhacay rabta ma waa dhawayta laha waa tuugsi ku xajiyo ninkii tuugsi bal asaguna ku xajiyo xajkiisii مبرور ما نقول كره لكن وانسحب يراهد لكن حاج مبرور ما نقول كره يراهد الا انه حارانيو واي markaas maal ku keenay waa saas ayaguna laftoodu ku miitaaliyeen ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام الرجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وهي حجين ليس بحري وإني أنا أكتطبت في غزوة كذا وكذا دولان هبل بالله يقرطي فقال إن درغ فحج مع امرأتك إسلام هذا مع الحج إلا أن هذا دولانكو فرض كفاية وها marka ciidamadan lagu qoray waa dad kala laga yaabaa ninkan booskiisii inay gali karaan laakiin islaantii waxa laga yaabaa ruux kale oo booskiisii baa la gali karaa oo ayadii baa mahram u noqday inuu san jirin ka islaantada xaqana la rajaxay marka ka islaantada la xajib la yiraahdo hada hadith muttafaqun alayhi bayna shaykhayn wallahu li muslim وروي وحال وري عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي سمع وحو مقلي رجلا ننبو مقلي رجل كاسو يقول أرنهيا لبيك عن شبرمة لبيك عن شبرمة ويعني بعد مركز إلا إن كل كاد روح نائب كتاي أو كحجين يسنول إيو ويا مركز ميد ويا ميد أبدك دوني بعهده وحال دون هيا إنات أصير روحي بعد مركز إنات كان نائب تاي العديسو يعني كل كاد حلنا يسوي بعد مركز واكا لبيك حجا عن فلان أما عمرتي بعد عن فلان إنات أما نويت الحج عن فلان نويت العمرة عن فلان لبيك حجا عن فلان إنات تلاهيد بعد مركز سيئات اسكن نائب ياش مركز صحابي قالوا لبيك عن شبرمة لبيك لابو مغلي قال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرمة والشبرمة شيء واكه قال وحيد أخ لي أو قريب لي وهو الكي أمامه هو الروح قرابة ضيئة قال وحيد النبي عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك نفط هرتم كحجني هذا حجة الإسلام كم قدرت قال وحيد صحابي الله ما قال وحيد حج عن نفسك نفط هرتك حج ثم حج عن شبرمة كذب شبرمة عندها شيء لك حجوا لكن هذا نفط هذا كحجنين ذلك لك ما حجين كثير ويورك رواه أبو داود وابن ماجه وسعاد بن حبان والراجح عند أحمد وقفه مركا حديثه
shawaahid iyo mutaabacaad kale uu leeyahay oo lagu sugan yahay yiraahdeen xadiidka inta badan waa la sugaay waana lagu dhaqmaa culimada oo dhan ba khilaaf saasaban ku jirine ruuxu ilan xajkii waa la iska naayib noqon karaa ruuxii haddii uu wada markaas nool yahay oo naftiisa inuu xajo uu ka samray ama waa yeelnimo ama yacni waa nin boos ah oo yacni naafo ah ama xanuun aan inuu ka daawo markaas aan la rajaynaynin ruux nooca ku sugan oo lafiis inuu u xajiyo ka qoostay ama ruuxii meydka ahaa waa laga naayib noqon karay laakiin bishardi waxa weeye ruuxa naa'ibka noqon hayay waa inuu horta xajkiisii gutaa waadaanta reerkeeda keenta yaa ta walaalkeed keenta leh asagiiba xajtul islaamkii gudanin ruux kale inuu ka gudo suuragal ma ahli walidaaba hadda ninkan uu xajinaya waa kan ma aragtaan labbayka aan shuruuma tawlaha waxa laga yaabaa kharajkiiba inuu ninkaas kharaj soo bixiyo iska suuragal ah haddii ninkani asagoo xajtul islaamkii gudanin intii la xajisiyo la amba bixiyo la yiraahdo kaciga soo xaji oo uu niyoodo adaan ka niyoodo weligii uu soo dhawaafo soo labbayka aan fulaaninta wahay xajki asagu muu dhacbaalay macnaha waa meelaha cibaadadu baa ay xoog galeedahay oo niyadii iyo maqsadkii lafteeda daba mar hatta niyadii maqsadkii cibaadadu ka qaalib noqonayso ila inama al-a'malu binniyati suma hanjil asagu suma niyoonin ninkanuba ka niyooday inuu ka xajiye soo saasma maca dalika iyadoo isaa tahay xajka tacalluqiisa xoog badan walidaaba hadduu xajka umradu fasahalan kala ku tahay loo sii taamiyelay sumaak ahkaamta kale musallamiid hayn salaad burtay miya la sii wadi karaa salaad adoo ku jira banaafiqaat miya la sii wadi karaa waa ma suuragal ma aha soon bad marka ka buray way asaguna sii wadisma laakiin xajku asagu wada iyo umradu ayagoo buray way waajib kugu noqon sida ayagoo saxiix inaad u dhameystirtaay iyo waajib kugu noqon hayaan marka asagu ka xoog badan yahay haddii marka ruux aad ka xajido adan gudanin waxaad xajinaysay labbayka fulaan aan fulaan taadaysay asagu bay ka dhacibaalay marka hadaad ruux iga soo xaji ama aabbahay ka soo xaji aad leedahay iska jir hubso horta wariyaa miyaad xajiday xajizaabku ma gudatay horta iska hubso haddii kale inuu kugu soo xajinin adiga kugu soo xajin hadaad asagu ku sirana kolka hada xajkiisu soo mafruur ku noqdo way adag tahay laakiin xajku asagu u dhacibaalay wuxuu yiri baad markaas Abdullah ibn Abbas ahadiithisi uma bay noo socotay أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول نن له مقلي لبيك عن شبرمة إلى ومالها تلبية كلية ومئها النية إن لقنا واقع حجك عمره ومالها بعد قمات أسقنات قال وحول من شبرمة قال أخ لي وأول الكيئة أو قريب لي وشكر له أما واره قراب ضيئة قال وحول حججت عن نفسك نفتا لم كحجد قال وحول الله قال وحول حج عن نفسك نفتا ورتك حجي ثم حج عن شبرمة كذبنا شبرمة كعجبا رواه أبو داود بن ماجه وسعد بن حبان والراجح عند أحمد وقفوه والروية وحال وري عنه عن ابن عباس وبابك عبد الله بن عباس باب له ختمها هي إلى باب يذكر اللوسي قدبنا وعنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس بوحولي خدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بنو قد بأغري فقال وحولي إن الله إلهي كتب وحو فرض يلي عليكم دشين الحج حجك إلهي دشين كفر يلي فقام وحايستغى الأقرع بن حابس أبرع بن حابس وهذا الرقي وويناية لسود مجرى النبي عليه الصلاة والسلام مؤلفين تابو كجري أقرع بن حابس بايستغى فقال وحويري أفي كل عام يا رسول الله والسنة كلا أركب حجك له واجب سنة كلا أركب قال وحو النبي عليه الصلاة والسلام وطوير عام سنبه روايات كلا فسيري وآمسي وكو علي هذانا وكو آمسي النبي عليه الصلاة والسلام وكو علي سنة كلا أركب منه واجب قال كاوي هذا النبي وحكا كينهاي قال وحو النبي لو قلتها هدان ليه لها سنة كلا أركب واجب إلا وجبت واجب لي الحج مرة حجك بعد مركز عمري هل مرة من غنها عمر دينا والله من فما زاد فهو تضوع وحي لكن ديراتك كا halka mar sunno noqon haya laakiin farbu kifaaya soo bedeliyo adiga wada xaqaaga sunno ahaan baad ka dhigtay islaamkii baa ileen waxa la rabaa beedka ilaahay kaabada sanadkii la arko in la amira loo baahan yahay dhinaca xaqqa muslimiinta marka loo fiiriyo farbu kifaaya noqon laakiin adu xajatul islaamki aad soo gudatay ana kuna nadrin wax kalena uu jirood ka xajinaysa una jirin ee sunno iska ahanaya fama zaada fa huwa tadawwu rawahu al-khamsatu ghayra tirmidhi
وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كاسنا الشاهد بأنقن هيابات مركا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه أن أرن لها نعم إلا سنة كلا أركب حكم له واجب لها هدانه لا واجب لها سنة كلا أركب إيجاد قبول ذروني ما تركتكم أنت أنا أقول إذا كنت جايو إداية فارفارك فرح بدنا إداية سيد لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق وربارو فارفارك بدل إلهي وما كان ربك نسيا ويئي وحو إلهي بعد مركا وعديه وهي أمر ليذن كرهبي أمر ليذن أمري وناك وحي بدل لك أمسي رحمة لكم بلغ أمسي نسيان ما أهلي مركا فارفارك فرح بدل هذا وقتي هذا وأحكامتي وبصقناتي نسخ بمجرئي لكن وقتي وحي يقول سعودي إلى النبي وحول عليه الصلاة والسلام مسلمين توحاودا بوين وجرم وين نين الشيء مسلمين تي أن حرام كهين انتو ويدي أسيق درتي لوغا حرمي وجودا بوين إلا أن فارفارك فرح بدل وحيالها أن دعني وحاصل إلا سيق قد كاسكو خير بدل ما صدرت بمركا النبي عليه الصلاة والسلام انتو عراضي يجرب الإداية انت إذا كأمسنا هاي إلا أن محل الربار نبي قال الله قلين با تأخير البيان عن وقت الحاجة شيء باهديس ومركا يتماضى إنه النبي كأمس سورة قلبه ما تأخير البيان عن وقت الحاجة انت عن شيء كأمسنا هاي رحمة بالله أمسية هاي فرح إيقا قال فارفارك قداي لكن مركا حاجكو هالمربو نقول وهذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا هاي له هو واجب له هذا وحا صورة قلع إن الله ببندق النبي عليه الصلاة والسلام وحا صورة قلع اجتهاد كيسي إلا النبي هو معصومه اجتهاد كيسو حتى لبتيسو هذا حق وافقي هذا وحون يعني هذا مركي تاسكي وقرمر لها الله إلالينها يلقما في رسنا وقت قابا ولا قبل ولا توسين بعد صادرت بأم اجتهاد أما التفويل بالله بندقه وحا صادرت تكدق اللي انت بواصل قال ومسائل خلافيه وانت بدل الاصوليين تاسكو خطان لكن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تاون باصل او اجتهاد غير هايو جبريل بو شيغيا باب المواقيت وقتيالك اي بابي ميقات هو هذا marka laba weeyo miiqaat zamaniga waqtiga ka inta badan loo aqoon jiray waqtigii zamaniga iyo kii makaaniga oo xajji umradu wada labaduba ay leeyihiin ميقات كزماني الحج أشهر معلومات الحج أشهر الحج حج بلهيسو أشهر معلومات ذو القعدة شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة لبضع بلوضات كاملة بش الصنفرات سيدتان لبضع صوتام يلا إيا طبنك إلا الموت هبين كالطونات ذو الحجة وحي كدام إبر بوي سماش وقوف كيبا كل هذا تقبس ويا حجكي هبين كالطونات لكن كيبا هذا مركا حرمضة ووقوف كيبا هذا مركا صومرة إسلا هبين لماذا وكم قاري كان حجك وطام نقون هيا مركا طبنكاس هبين بش ذي الحجة طبنك هذا هوري إيا لبضع بلاد كور ريسا وكا أشهر الحج الحج أشهر معلومات لله عمرنا وقت والبا إن هذه أعماش حج والدم ويه هذا أعماش حج والدم أيضا بتكون عكستها هذا ميل كامل بنانا لكن وقت كست أيضا وقت هو نقولنا يا بعض وقت كست أيضا وقت هو يا بعض كاسي وحق الزمن أما حق مكانك وكهذا ماشي لو كنت ذي وكانوا شيخ صوّر والرؤيا وحال وري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه وقتل أهل المدينة في المدينة بعد مركب وقت أغني ذا الحليفة ذا الحليفة والي ماشي حالا يريد عوصي يرضى حالا يريد ماشي أصاحبك حالات ماشي عصو وقت أغني ميقات أغني مكان فإذا كنت جرتنا معناها هو حرمك احترام دي سوى إلى هذا أنت حرمك إلا كعبدي وكاركته احترام قاره لذا واكن الدوافع مسجد كيبا هذا مركا حرم وكاركته فالله إيش أولاه إنت سناد اللي وانتو كذا على سمينها حرم كيبا مركا إلالين هايو وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم والمصلى قل كإلهين بعد مركز أولا كل كيراهدين كفار قريش أيوة بعد بين شيء هذا محمد أقول عنا وحن كيا بين إن حرم كنا لقى قبل كذا وكذا بعد إلهي ويجي بعد أولا نمكن لهم
حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ميانا مكمنين ويا حرم آمنة oo asaga oo wada marka dhul iska gawaadiir oo gawaan oo wax midho iyo wax raashin wax badan ka baxa aan jirin adduunka meel kasta midhaha ka baxa la soo aadahay yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna wadan kasta midhihi ka baxay yaa ma kale la soo aadi waa macnaha soo maaragtay bi amrin min Allah ta'ala markaasa waxa dhacda la yiri kolka barkood wadamadii ay ka baxayeen midhuhu inay marka kaga raqiisnaato wadamada ka baxayeen ka baxan baad marka khasaa'ist marka xaramkii ilaalintiisa waka artay ilaahay geediisa gogoynina ugaadhiisa ha taabanina shimbirtiisa ha dirina walaalo fiiri xaramka waa ilaalinta iyo haybada ixtiraamka baad marka xaramka loo sameeyay weeyaan kan darteed ba intaas oo dhan loo ilaalin hay markaas ilaalintii isla asagii weeyay ruuxi marka inuu xajiyada ma xaramka yimaado asagoon u soo dhawaay meel hibla leh jib waxaad ku sii socotaa xaramka yaabaan ha isbedel adoo batan taagan markaas loo soo sameeyay afarta gajiya markaas dayr loo sameeyay kolkaad soo marayso waa in isbedel ah sameeysaa war soo xaramku ma socdaa meesha marka la joogo dhulka la mid ma aha waa ina way la isbedelaa la xarmadaa hay muhrim la noqdaa dharkii xataa la iska bedelaa laba go'o aad ka falmoodid la qaataa la isbedelayo Soomaali ay marka waa ixtiraam iyo haybada wada la siin hayo way wada markaas xaramkii way markaas wuxuu yiri waqata li ahli almadinah wuxuu miiqaat yiri miiqaat makaani dal xulayfa meesha dal xulayfa waa madina duleedkeeda asagii masjid rasuul 12 kilomitir bas jiraaba 17 meelaha masjidka nabi markii laga qaado calayhi salaatu wasalaam oo xagga maka loo soo ambabaxo ilaa xaggana loo soo ambabaxo hadda inagu waa ka soo horjeedkeena loo soo socdo 12 wax meelahaas oo kala jiro kilomitir oo masjidka rasuulka u jiraaba waa madiina hadda waa wayba saayam halkaas wada marka ayaa looga miiqaad yeelay waana miiqaadka ugu fog maka kolka la fiiri inta kale miiqaadyada miiqaadka ugu fog waa ka reer madiina wali ahli sham bada marka dadka ka imanaya way meeshaas wada qiblada dadka wada gabalno xageeda kaga imanaya oo badda labada dhinac bale dhinaca midigta wada way Suuriya iyo Lubnaan iyo Urdun qoliyahan oo dhan iyo kuwa bada marka ayaguna Afrikaanka ee wada bidixda ayaguna badda ka ah kulliba qoliyahaasna waxa looga miiqaad yeelay al-Juhfa dhacdhacada labada xeeboodba labada badda labada dhinacba dadka ka imanayana waxa looga miiqaad yeelay Juhfa wada dhacdhaca ilmalays waxay doonayaan meeshii balaayadii Madiina loo raray weeyaan kolkii ade Juhfadii hadda wada waxa la wada burburtay meel raabuq la yiraahdo iyada dariskeeda ayuu ku wareegay wadada ay marta al-Juhfa wali ahli Najd waaya reer duleed waay najdul baad markaas dhinacaas wada dullaha dhulka buuraleyda kore oo xagga kaga aadan baad markaas waay kaabadi ayagana qarnul manazil qarnu ta'aalibna waliyaha kuuska waad markaa qarnul manazil ama kuusaskii dawacada baad meeshaas ayagana looga miiqaat yeelay wali ahli yaman baad markii xagga intihamatul yaman ayna najdul yaman ba xagga shay jirtay qolada hore la jirtay intihamatul yaman xaggan xeebta iyo inaga Soomaalidan iyo waxay lamid ayaguna xaabta xaggan ka kulaaxay ilaa inagina xaabtan xaggan ka kulaaxayna dhanka kale Yemen ka kulaaxaysay ayagana markay inaguna ku dhawaanaynaa ahli Yemenna iyo reetihaamadan yalamlam ama allamlam waxay noqonayaan marka ayaguna markoodii baa la yalamlam markaas anagu wuxuu calayhi salaatu wasalaam hunna miiqaadyadaas la soo sheegay lahunna li ahlihinna ehelka loo soo sheegay baa iskale kaligood ma iyo waliman ataa calayhinna ninkii korkooda ayaga yimaado oo min ghayri ahlihinna ehelkoodii aan kamid ahayn macnaha ninkan oo reeyimana haduu Madiina tago miiqaadkiisu haduu ka soo xarmanayo waa kii Madiina haduu Ciraaq tago miiqaad ka soo xarmanayo waa kii Ciraaq haduu Shaam tago macnaha wadan hebel buu degan yahay kaliya ma marka cidda degan ee loo magacaabay iyo cidii marina u soo noqotoba qaas weeye miiqaadyadaasi buu ay oo miman arada al-hajj wal umrah nin alla ninkii hajj umra doona ninkan hajj umra doonin ina waxba yaani miiqaad lagu laaziminaynin muu mafhuumku noqonaya imaam Shaafici iyo rag lamida waa imaam Ahmad riwaayatiisa ayaa saa ku daraarsaday waxa sameeyay in culimadu u badan yihiin miiqaadyada wada marka maka looma soo gudbi kara iyada oo aan la soo xarmanin saasay leeyihiin oo ayaga laftooda xadiis sanadkooda musannif jiid uu ku tilmaamay yaa inaan baa marka xaramkii ama maka aan la imanin illa ruux baa markaas nusub bal iyo amal la socdo mooyee bu nabiga calayhi salaam kaas xuskan haya
ممن أراد نكي دوني الحج حج دوني والعمرة عمرة دوني ماهين وما كان دون ذلك وحيد لأماكن تعالى الشيء كسوك يميقاتي داس فميقاته من حيث أنشاء مال الله ماشو سفر ككتل ينغن هيا حتى أهل مكة إلى ري مكاتبة ويمركز يهلون من مكة مكان نفط هذا إيك حرمضان هذا حديث متفق عليه بين الشيخين معناها إلا النقطة هي أفرتيك جاءوا ميقاتي اللو سمي ميقاتي هذا إن لقصوا حرمضو إني أفي عنتها هي مران مالي وحا إجماعا ميقات كش هذا كسوا حرمته صحابة قاركونا أي سمية ميقات كيبا انت هذا سوق قاري كشش هذا الكسو انبحثوا كسو حرمته وانسحي مرر ملئ لكن ميقات كانت كحرمتها كسي معان بيدان